دقيقة توصل إلى هنا waxaynu inka soo maray soddoniyo sannadood oo aynu la soo noqonnay dalka kolka loo fiirsado xaaladda aynu marayno maanta mid qurux badan ma aha sida runtaa baabladkii goortooyii wasiifadii waxba ay naga siya maaha maalintii la oranayay ninkaasi waa reegayo ma shaqaystee kaasaynu shaqo siinaynaa ma aha maalintii la oran lahaa waa maalintii la oran lahaa yaa in anfaca yaa dalka wuxuu qaban kara yaa horumar samayn kara yaa meel ina gaadhsiin kara ayay tahay inaynu bilowno su-aal arriye waxay ku tahay ama ku waraysan tahay cidlo aadan iyo waxqabankeedii sidii awuhu ahaa u jawaashay kolkaarradeenu waxma qabtee dumarkuna waa laakiin jaaniskii raggu helay dumarka ma helin waxaan kolkaa odhan lahaa aynu dhalinyarta faraha badan maanta joogta yaan reerreernaynoo qaybeynin waxaynu noqonnaa dad isku xilan ay noqdaan oo rag iyo dumarba iyagaa tirada maanta ah ay wixii hore wax ka bedelaan taasaa loo baahan yahay sida runtii kolkaa bilowga aynu maanta bilowno halkan ilaahay ha ka dhigo kii loo aayi lahaa inanteed iyo inanku mid waliba waxay ugu dhashay baa jira waxtarka waa loo kala dhashaa aqoontana waa loo kala dhashaa ficilkana waa loo kala dhashaa wax lagu qabanayo kolkaa aynu
eegno dhalinyarta maanta soo baxaysa rag iyo dumarba aynu u eegno siday waxqabasho u leeyihiin iyo siday fikradoodu tahay iyo siday inoo horumarin karaan iminka qoladayadii waaweynay inaynu wax hamaraynu ka wanaagsannahay yaxaanaynu ka wanaagsannahay waxay naanfacmaaye inaynu wanaag la nimaado weeye waxa aynu ku faanayna wax ina dhaqaya ma aha kolkaa waxa weeyaan dhalinyartu waa inay u fakertaa si muwaadinnimo oo aan si reer ahayn iyo isku xidhnaan ay isku xidhnaadaan intay dalka joogaan majoritigiina waa iyaga kolkaa waan soo qaadanayaa hadalkayge dadkii waaweynaa lasoo arag kii qabiil ku shaqaynayay lasoo arag maanta waxaynu u baahannahay dad inagu dhaqa oo ku socda dalkan guud ahaanba sidii looga saari lahaa xaaladda uu maanta ku jiro kolkaa inta aynu ka aragno duur lagu qaani karo sida eednadii sucaad iyo qaar kaloo lagu kolkaa sucaad lada ay leedahay waa usugaa intay dalka xumaantiisa wax ka tirina waa loogeedyahay oo muxuuha wax qarsoon maaha kolkaas waa soo gaadanayaa dadadinay jiraane kolkaa waxay leedahay fikirkeennii hore ee reerka ku dhisnaa meel kuma gaarayne aanuu noqonno fikir ku wanaagsan oo dadnimo ah oo dalkeenna wax loogu qaban karo wasalaamu calaykum waraxmat سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا عن عين كاول سيداتي مروي يبدو نيال مروي كوحا نور رئيسيي هسا يغتها قيبي waxaa jirta been yar oo fakatay oo la yidhaahdo wadaadkaa garhka casi haweenka iyo horumarkoodba ka soo horjeeda caawa markhaataa ka noqoto inaaya ka soo horjeeda sidaa uu saydigay u sheegay waa la fara badan yahay waxaan jeclaan lahaa waxyaabo badan sharaxo waxa aan doonayaa inankii inooga horreeyey سعاد بو وحكى شيء بروفايل كذي أنا وحن دنيا سومالي وحي سلاهذا أباس وحي لا هو بكذي عليه معني هو حويه وهي دراعه وهي أدهادها أو تقابل يوسف أدوات هارون عربية أيا لا يوسف أدوات الله نحرسته خبرت شرد حسين الله نحرسته horta waxay qabtaa ducadii waalidkay qabtaa annagoo wada joogna aabbahay sida u haysay iyo hooyadeed sida u haysay ilaahay ku geeriyootay ayaan egsoonaa anigu ducay qabtaa ducadii ilaahay waa aqbalo waxaan jeclahay ayaan dhaweyto sir baan idiin sheegayaa maalin dhaweyd waxaan isyidhi risayn garayo ka baxa golaha waa runtay wallaahi dabeetaniina odayoo la tashaday baa igu yidhi dee bal horta cid inta ku bedelaysa ay soo baxaysa ha bixin sucaadda ay bedelaysa balena waxaa ku qaadiya taageerta inaan la wado waxaa la tilmaamay sida xun ee dhaqanka xun aynu waxu garanno hablo badan ayaa jira maalin baa waxaan ku idhi bal inan baa soo baxaysee wuxuu wa reerku nin buu soo saaray reerku nin ayuu soo saaray inantaa aan lahaa bal ka waran reerka way ka dhalatay way u dhaxday way u dhashay ninka la keenaya miyaanay darajo dheerayn dhaqankaasi waa inuu isbedelaa dhaqankaasi sidii hore loo sheegay
وإن إسبدلا وحان دوني هنا وانجي ميس أدوار شاقي لقي سيجيسي هورتا آبيها سياسة كبرتيبوها ده ذهن كاوه قياس كرتان وحوها آبيها سياسة كبرتي إلا أنك أكبر إني إنها يوم يشاء بيتو واحد عبد أبيها أقول يا أبو حكم الهيد عبد الناصر مركو سويس وناشنال قرر أمني وحوها مركا كرسيمها maxay toonay Jarmanka oo shaqtaa bartamo cadan ku maqnaa telegram buu u diray Jamal Abdul Nasir uu ku tahniyeynayo dawladda Ingiriiska ayaa isku dhawaashay waxaan hayay ilaa bariga weyto jirka Sunday Times oo ka qortay soo kan Jamal Abdul Nasir inoo dhaafay xagga kan misooda horta kaasoo ahaa kolka waxa weeye legacy waxaan leeyahay برنامج برنامج كلام هذا هي كل هو حلاه وأنت تجاري كابتن ولا كذا ولا وضيع وحن كل دنيا أنا شايفه ماشان أنا شوفنا حرب لما نلاقينا وحكم لها في قطر تقدر ما كذا أنا بروح لها الكاسب وحقه هروك الدينية أربع قرآن صوت ليلي أربع تسر صوت ليلي أنا بنتامين ما يكينين أنا حاكين الدولة هذا قاعد كتاعي وأنا أجاي اليوم على هاتون الدولة عند مكان تكتاعي مكان وزير سعد أكيد سوق علي وحان شاوية هذا قاعد كلين كان بين ذلك جلية حزب والمو حدوني أنا دمر في أطمان أو كان لا يسوق عصانية دمرون وحان سيكوني وحي وحقبر فتح دمر يسوق بسرعة كوتو ضروري كمثلته دولة واحد كانت تلبية لها 22% حلبانية هلا بقى هلا سيئة دمر بقى يشتوق أفضل دونا وحان لا ينسل تلبية دولاركا لبيئة 22% كا قولها يزيرة تقوى صدح يصدر هدولة قايبية وحلولية 7.6 كيليه صدح وزيرة كلية أيام كنا أفر يا بربا كما غنى دانتها وانا نقول تاجرين مرة ساسية ملح هؤلاء نان ساسية وهذه داعم لقيه انكسار الإسلام هو عمله أو رسول أولي ألا وحلا سبحانه وحن أركي أو كلوتولا حكاميه حزب الوطني ما أنت أحزابتنا وأنا ضلن فقاعدا تلقين يجب بسيط سيطانية independent كندا سنة سمية مرشحين حرقة أنا أحزابتني وأنت تغفل لا تبقى قاعدة كرسي عاداتها لي صدق حزبها دوتك سوينك قادنا أيام عزية تبقى قاعدة كرسي وحوالي independent candidates وانتصار كالفرا أنا وحنا أركا انتصار كفصح يبا ووحدي وأنا شري وأنا صدق حزبية كري عند الليلي أنا وضع في يالنا لكن مرشحين وحنا قناة لما شيء لكن هذا تحسون نفسه دستور هلا فرا independent candidates هلا عبارة مرحونا كحنيته يا مرشحين تدرياشة أنت ما هلا فصحوا وحكرا إنجليز كسان كور قبو يا أمريكا شرق يراهبا لا يراهبا positive discrimination on behalf of the people and the deprived people وحوالي هذه المجتمع وكرهوسيه وإلا إسمه سوكارسية ها وهذول الدولة نسمينه كوتا وحوكنا سمارينه كوتا وحوكنا سمارينه تعليم الدولة هلا كردية أنا هلا كردية محل كانوا يقلنتا هلا كردية نظام تنحين هلا توجيه وحان كلو آدي ببادينية والله شيء دماشري أدنى يدماشري كلام ها والله الله أقلم له وحان شيء دمرو
كصابيرة 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 وأنا اللي تاجرنا لكن كوتا يحنا فيه الرجل وحى سريع الشارع تمامي دونتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي وأنا بالغدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومالين ومالين تاريخ الصومال لنجريسة إن شاء الله بالذهب كجريسة إن شاء الله مركا أي سوش الرحان ضد سعاد عملوا عدوى أوكلا أي أخران وقت جودة همتي جودة هيل كودة دل كانوا صومال الآن oo iyagoon u baahnayn oo aan u galaynin inay maal ka helaan ama magac ka helaan magacoodii iyo maalkoodii iyo kartidoodii iyo aqoontoodiiba u hura Somaliland ummadooda ilaahayna tusaya mahaddaa leh hooyo Sucaad waad naga farxisay markaad go-aan kaa gaadhay inaad matasho haweeney matali maysid Sucaad Somaliland bad matalaysa waad antahay boqol koota matalaysid ku ugu hiilin maayo Sucaad waayo Allah yarxamo hooyadeed ayaanu saaxiib ahayn ugu hiilin maayo waayo aabaheed abtigay carmiye odowaa awgeed kugu hiilin maayo kuugu hiilin maayo haween baad tahay oo keliya waxaan kuugu hiilinayaa qof shaksi aan hubo inuu dalkayga Somaliland u hiilin doono kaasaan kuugu hiilinayaa hooyo Somaliland sida uu sheegay walaalkay Maxamed xaashi cilmi Somaliland maanta waxay u baahan tahay hiil weyn muddo dheer ayaa layna cadaadinayay cadaadiskuna wuu sii kordhayaa inta cadaadisku sii kordhaba waxaynu u baahannahay inaynu waddaninimadeenna dadnimadeenna aynu sii adkayno dooni maayo inaynu xisbiyo kala jabno garan maayo anigu xisbigaad ka shaqeexi doonto garan maayo laakiinse kii aad gashaba waan kuugu hiilinayaa hooyo shakhsiyan ayaan kuugu hiilinayaa xisbigaad gashaana waa xisbi nasiib u helay inuu qof karti leh uu kursigaa uu ku soo dhaweeyo Sucaad waxaan hubaa inay dalkeennan Somaliland iyo ummadeennan Somaliland ay ugu hiilin doonto damiirkeeda halka damiirkeedu faro inay ugu hiilin doonto ayaan hubaa Sucaad u marayn maayo in lagu iibsan karo noocodee oo wax jaajuur baan iska iibsanaynaa nooga codee lagu iibsan kari maayo ha baayicina taa ha ku baayicina Sucaad lagu iibsan maayo xisbigaasaa xaggaa u socday xisbigaan raac lagu iibsan kari maayo Sucaaday reer hebel ba halkaa maree weenadaadna reer hebel halkaasuu maree ku beertaa lagu iibsan kari maayo Sucaad waxaan hubaa inay damiirkeeda raaci inay raaci meesha ilaahay tuso inay u roon tahay u wanaagsan tahay u khayr badan tahay ummadeenna Somaliland waxaa aniga farxad weynay ah in markii jagada wasiirnimada laygu magacaabay saaxiibaday Amre Cali Xiis iyadoo dawlada 40 agaasimo guud ay buuxaan wasaaradaha inaan u magacaabay agaasimihii guud ee haween ahaa oo kaliya ahaa xabadda agaasimaha guud ee aan u magacaabay wasaaradayda aan ugu magacaabay waxaan u baahday qof aan aamino oo aan ku aamino hawlihii iyo himilooyinkii aan lahaa aan habeenan ugu qabto hawl ugu qabto wasaaraddaas qofka keliya ku aaminayay bay ahayd uma nin adag baad weydi uma nin kula qabtaad weydi uma 4 agaasimo ayaan ku ogolahay inaad qaadati
xabadaasaan ka doortay xabadaasay igala qiimo badnayd xabadaasay iga karti badnayd xabadaasaan isku haleynayay xabadaasaa si sharaf lana u haysay hawshii markii dambena xilka laga wareejiyena si fiican oo qurux badan uga soo wareeg haweenku waa kuwaas oo meedhan iyo kuwa koo ka daran oo ka badan aamina mulga waa la ceelay markay soo doorato berigii dhaweyto qabiil baa ciilay aqoon daraa ayaa ciishay kartida ku jirta aamina mulga may garanayn kuwii codka siin waayey may garanayn waxay u qaban kari lahayd may garanayn waxay ka doorteen mijaadka u qaada waxay ka doorteen miday laaluushi karaan waxay shaqsigii laga doorto garan maayo shaqsigaa wax ka sheegi maayo balkulle laakiinse inan rag ahaan baan sheegayaa inan rag ahaan baan duuduubu sheegaya turkiya ee shaksi gaara ma tilmaamayo haddaan shaksi gaara uu isagu isleeyahay adaan farka ugu fiiqaya xaal baan ka bixiyey kulley waa abtiyaalada iwane xaal baan ka bixiyey laakiin aamina mulgo hadday soo gali lahayd golahaas ay isu soo sharaxday aqoon bay ku soo kordhin lahayd somaliland bay u hiilin lahayd hawl badan bay ayaa inoo qaban lahayd somaliland wax weyn bay u tari lahayd iminkana anigoon hadalka dheeraynayn waxaan leeyahay hooyo sucaad carmiyo odowaa waan kuu ducaynayaa hooyo waddo adag ayaad cagta saartay xasid badan baad yeelan doontaa u dhabar adag ka soo qaadun shimir yaroo halkaa wax kaaga daadisay saasuu iska dheh ha cadoon u dulqaado aqoon darra halkaa dhigtay ka ku xaasida aqoon darra halkaa dhigtay u ducee wanaaji wuu garan doonaa waxaa lay hooyo ilaahay garabkaaga ha galo ilaahay ha ku ilaaliyo ilaahay adigoo kale rag iyo dumar raggaba wuu ka buuxaa dad badan oo somaliland u hiilin kara way ka buuxaan ilaahay ha noo soo sooco baarlamaankan iminka la dooran doono golahan iminka la dooran doono ilaahay ha nooga soo buuxiyo ilaahay nooga soo buuxiyo dad somaliland daacado ah iyo horumarkeena daacado ah ilaahay ha kuu hiiliyo hooyo meelaad joogtana itirso waan kuu hiilinayaa haddii ilaahay igu simo haddii ilaahay igu simo aad baad u salaaman tihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة حسب هجاميه سوى شو هذا الدوام. لكن أنا سعاد دام هذا. سيدا دتكي هو هذا البيج ما تيجي سيدا ولا شيء سعاد. أقوم تيله. أقوم بلا حكمة ترتي حكمة تيله. أقوم بدنا بلا حكمة ترتي. حكمة بعودة. قفنا مليلة. أقوم تيله. حكمة تيله كم من يستي الله سيادي هو توا إجانا وين هو شيء نايت وين هو توا كتاجرنا وحيوان كتاجر كميت. سومالينا نمليلة. ولا هذا الكيس يعني وفصل وكفهم أي هذا الكيس دبي هذا الكي ديكي نوري شبا أنت يرجع هو يبقى ما لقيه يا إيد رأيه قبي يسعى وصلا أما عم بايس كيرا نحكي لما كنت بيسوي حول وحيوان بكوكل الدول ما يشربوا واحد نص سومالي هذه سوالي وكان وسيدي واحد واقعتين الصومالية يدو تاجيري سأنا مو فاهمين سعاد صومالي النادمية شك ملك سعاد وحى أصلهان يفرعهان منا بمت صومالي لوقا شكي كرماه dadku waxa la haweenkii iyo geelaba waa la hidaraaca waa hore loo yidhi dee hooyadeedna waynu garaynaa wayna jirto xuseen eedna waa carmiyoodu waa
أصل إساء يصاحل يتوقع أنت ويسمو جرتا أنت أصلا عسكو درت السومالي لا دورنا سعاد waxay ku soo dhaweynayna maanta waxay u baahannahay haween in matala haween maxkamadda halkii xildhibaanku ka hadlayay distoorku waxa fasirtay maxkamadda markii foosiyay Yuusuf Xaajaadan loo diidayay inay kaligeed sharaxdo ayay maxkamaddu soo saartay go'aan inaanu jirin sharax gooni isu taaga nasiib darradaas taala waxaynu u baahannahay inuu haweenkeenu ay noqdaan wixii ba kala lumeen waxaynu u baahannahay inaynaan noqonin weliba ragga la hadlayaa inaynaan munaafiqiin noqonin oo markaynu keligeen joognana aynaan musharaxiinta ku dooran waa nin adagoo dumarku necbi horta wax kala garan maaye marka dambana inaan odhan dumarkeenu wax la doonayna waxaynu u baahannahay waxaynu isku nidhaahno keligeen markaynu nahay aynu bedelo inaynu qiranno inaynu dumarka ka soo horjeedno oo ay taa aynu joojinno oo aynu maanta dumarka isku horraysiinno ayaa loo baahan yahay haddii taas ay dhacdana kuwii ugu horreeye la dooran lahaa sucaad baa ka mid a inta waxaad waddankeenna marka la eego runta marka loo noqdo dumarba intii dagaalada laga soo noqday ee burburkii laga soo noqday dumar baa lagu taagan yahay waxaan ka sheekeynayay mar dhowadaanu halkaa bannaanka fadhinay halkaa goojana annagoo guri ku jirna aqalka naga dambeeya ilmo yar baa ka ooyi jiray yar oo aan sidhi weeks buu jiray 2 week ama waxa kaas oo mar walba ooya habeenkii maalintii fiidka hore ilaa maalin oo dhan maalintii dhammaanu idhi meeshan waxa ka socda aanu soo ogaano anigee nin dhintay cabdirasaaq ciyaale allah yarxamu waanu u tagnay waxaanu soo ogaanay ilmihii yaraa inay hooyadii shaqo tagto oo ay qaali suuqa ka tahay umulla ay tahay oo cid ka reebtay weydi oo halkay kolayga la fadhiisan lahayd ay inan yar kaga tagtay oo ilmihii yaraana sidaa ooyey taasoo midhan bay haweenkeennu ku shaqeeyaan iyo qaar ka sii adag waddankuna iyo dhaqaalaheennuna iyagaaba ku taagay inta badan waxaasoo iskuul ka soo baxay iyagaa soo saaray waxaasoo quraxa iyagaa abuuray haddana tale uma ogolin gurigoodana iyagaa ka taliya taasi isqaban maysa sidaa yeelo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu مجاهد إبراهيم إبراهيم وكم ستة مجاهدتي هلقك سوماليلاند في حرنتيسا سيدي قنقاتي إسلامركا سنة سوماليلاند مانتا أيضا كنا لنا من نبتقليدا يسيدا كلا ورمركا كسر بلادي موجبرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول مدنيان يمريين با انت مداشة فقيلة قفل بوحن في السلام يا منسب أمكيسي مجايس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سعاد هذا الماية هران الله هذي وانا قفل يقانع إلا برايا ما مركي مناسبة يقول مرتقى هذي
waxaan isweydiiyey bal wax ku munaasaba oo laga faa'iidaysan karo oo halkan aan dadka isku soo hortaagi karo. waxay la noqotay inaan 4 su-aalood aan halkan iska weydiiyo kana jawaabo. su-aasha ugu horeysa waxa weeye maadaama munaasabadan ay tahay daahfur ay sucaad ku soo gelayso saaxadda siyaasadda, inaan isweydiino horta siyaasigu muxuu yahay? horta siyaasigu waa kuma? goormaa qofka la odhan karaa waa siyaasi? waxooga cilmi baarisaan sameeyey. siyaasigu waxa weeye waa qof daneeya dan ka dhaxaysa bulsho. bulshada xaydaankeedu wuxuu noqon karaa amba deg buu noqon karaa, amba qaran buu noqon karaa, amba dunida oo dhan baabuu noqon karaa. qofkaas waa inuu ku xiran yahay amba xisbi amba dowlad. haddii kale waa inuu damc leeyahay inuu ku biiro xukuumad, uu ka qayb qaato go-aan qaadashada qaranka. horta siyaasigu waa kaa. qofka aan xisbi ka soconin amba dowlad ka soconin amba damac aan lahayn laakiin arrin daneeya oo ka hadlaa, isagu markaa wuxuu noqonayaa siyaasi noqonaya waa activist, waa qof activist weeye. sidoo kale qofka aqoon-yahankaa professorka oo kale ka soo qaad ee daneeya arrimo ka mida siyaasadda ee xallila ee naqdiya, isaga laftigiisu siyaasi maaha, waa aqoon-yahan. marka ilaa iyo iminka sucaad waxay ahayd activist, laga bilaabo caawa waxay noqonaysaa politician. waxaan kala soo waday su-aasha islaamku muxuu ka qabaa inay haweenku ka mid noqdaan hoggaanka qaranka? waa su-aal hadda jeer la isweydiiyey. su-aasha jawaabteeda waxaa kaaga filan, waxaan halkan aan ku hayaa 11 dal oo muslimiina oo haween madax ay ka noqdeen. waxaa ka mida Bakistan, waxaa ka mida Indonesia, waxaa ka mida Turkiga, waxaa ka mida Senegal, waxaa ka mida Bangladesh, waxaa ka mida Iran, waxaa ka mida Mali, waxaa ka mida Kosovo, waxaa ka mida Mauritius, waxaa ka mida Singapore oo madaxweynaha maanta Singapore waa haween, waa gabadh muslimada, Xaliima Yacquub baa la dhahdaa. marka horta diintu waxay ka qabto waxaa kaaga markhaatiya dad islaama muslimiina baa haweenkaa doortay, looma magacaabin. magacow kumay imanin, madaxnimada doorashay ku yimaadeen. qur-aankuna waxaa ka hadlaya aayado badan inay haweenku noqon karaan madax. oo boqoradii Saba markii nebi Suleymaan ay u timi, markay islaamtay boqornimadii lagama qaadin. sidoo kale haweeneydii koobaad sayidina Maxamed sala allahu calayhi wasalam, Khadiija, waxay ahayd la taliyaha koobaad eebay ayaa ahayd maxay rasuulkii Maxamed sala allahu calayhi wasalam ee nabigii. waxaa jira layidhi xadiid odhanaya cidda haween ay madax u noqotaa ma hana qaado amba ma barwaaqoodo. laakiin xadiidkaas waa laysku haystaa runtii inuu yahay saxiix iyo inaanu ahayn mid saxiix iyo midaan ahayn. laakiin xaqiiqdu waxa weeye sidan haddeetaan soo taxay, haweenku kaalin bay ku leeyihiin siyaasadda iyo hoggaaminta qaranka. qodobka saddexaad aan doonaysa la taagaa waxa weeye waddamada haweenku ay siyaasadda galeen ay qayb ka noqdeen, maxay natiijadeedu noqotay?
ragga miyay la sinmeen ma baray dheereeyeen mise way ka gaabiyeen waxa daraasado badan oo la sameeyay ay sheegaysaa haweenku markay baarlamaanka galaan inay ragga ka firfircoon yihiin waxay kaloo daraasaduhu ay sheegayaan inay u dhow yihiin inay heshiiyaan dumarku marka la isqabsado had iyo jeer ragga waxa laga yaabaa qofba inuu meel qabsado ka fog mowqifka kale oo adkaato in laysu soo dhowaado laakiin had iyo jeer iyaga arrimahaasoo kale markay yimaadaan xal bay u helaan waxaa kaloo daraasaduhu caddeeyeen in sharciga ayagu ay wataan ay gabadhu wadato aanay ka daalin ilaa laga ansixiyo baarlamaanka marka halkaa waxaa ka muuqata runtii markay baarlamaanka galaan inay ka tayo badan yihiin ragga dhigooda waxaan ku soo gabagabaynayaa intaanan ducada u gelin talo talaas waxay ku salaysan tahay waayo aragnimo qofka siyaasiga ah waxaa looga baahan yahay kulamo dardaarmaya sucaad inay noqoto siyaasi arrin ishii aanay noqonin siyaasi shaksi oo ay ku sumtanaato arrin amba haweenka ha ahaado amba dhallinyarada ha ahaado amba dhaqaalaha ha ahaado amba ictiraafka somaliland ha ahaado laakiin arrin inay ku sumtanaato oo aanay ku sumtanaanin maxaan idhahdaa aflagaado oo kale inaanay ku sumeynin ayaan runtii kula talinayaa waxaa kaloo kula talinayaa inay diyaar u noqoto oo u diyaar garowdo in la dhaliilo in laga gardaraado saaxadda siyaasiga runtii waxaa ka mid ah teema iyo kuwa kaleba in qofka si toosa loo abbaaro iyadan xaq loogu lahayn marka waxaa loo baahan yahay dulqaad badan baa looga baahan yahay sucaad waxaa looga baahan yahay qofka siyaasiga inuu ilaashado sharaftiisa iyo magaciisa oo marka la maado amba laga gardaraado aanu ka falcelinin haddaad ka falceliso markaa waxaad gelaysaa seerkal ku majara habaabiya marka waxaa loo baahan yahay qofka inaan marka lagu maado in laga gardaraado inaanan la raacin oo aan lagaa duwin ujeeddadaada iyo hamigaaga iyo arrinkaada wadato waxaan kaloo ku talinayaa inay sucaad ay taageero iyo cod ka raadisa inta codaysa oo ah haweenka iyo dhallinyarada anu waxaan joogay inka laba doorasho saddex doorasho halkan kiyuuda cidda gashaa subaxii ilaa galabtii waxay u badan yihiin haween iyo dhallinyaro marka siyaasadda laga hadlayana waxay u badan yihiin ragga waaweyn bay u badan yihiin marka waxaan kula talinayaa in codkiisu la yaala haweenka iyo dhallinyarada inay halkaa ka raadsato waxaan kaloo kula talinayaa inay muhiim tahay inay samaysato tiim adag siyaasigu inuu soo baxo iyo inaanu soo bixin waxaa qayb weyn ka ah tiimka la shaqeeya adigu inaad hogaamisan mooyaane dee keliga ma doonan kartid kursigan cidi kula shaqayso marka waxaad u baahantay tiim dhallinyaro iyo haween iyo oday iyo aqoonyahan bay isugu jira oo ku taageera oo murug iyo maskax iyo maalba sida kaa garab taaga waxaan kaloo ku talinayaa in aada u diyaar garoowey inay doorashadu tahay qaali doorashadu aad bay qaali u tahay in lagu guuraysanayo in kalena ilaahun baa xukumeeyo marka ina taan aad ku tala gasho inkastoo xitaa haddii aad ku guuraysan weydo ugu yaraan laba shay lagaa dhexlaayo mid waxa weeye fariintaadii oo dadka gelaysa
oo laga yaabo inay inspire garayso dhalinyarada soo koraysa markaas runtii khasaare maahay waa dhaxal weeye inkastoo xitaa dada kursigaad ku guulaysan weydo ugu dambeyntii sucaad waynu u ducaynayna waxaynu u ducaynaynaa ilaahay subxaanahu watacaala arrinkaa u soo kacday inuu ilaahay u fududeeyo subxaanahu watacaala annaguna sucaad waynu kuu garab taagan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hase yeeshee munaasibadda ayaynu kusii socon doonaa waxaynu dhexda kaga jirnaa munaasibadda shaacinta musharaxnimo ee golaha wakiilada ee gobolka saaxil musharax xildhibaan sucaad carmiye odawaa oo halkay maanta si rasmiyeed ugu dhawaaqaysa waxaynu sugi doonaa munaasibadda khudbadda ay ku ifafuri doonto iyo sababta keentay xilligan inay soo sharaxdo hase yeeshee dhinaca dumarka ayaan u leexan doonaa waxaanan u yeerayaa xubnaha arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaridka wiciid hibaaq abyen barakaatu marka ugu horeysa waa idin wada salaamaya dhammaantiin koley arenu hadda wada garanaysiin laakiin sucaad carmiye odawaa waa eedaday aabahay ilmaatiyiin marka anigu maanta waxaa u hadlayaa si xisbiyaan iyo siyaasad laakiin si gaar ah oo eedadaya oo taageerayo insha allah marka inta badan siyaasadda la arko dee dumarna laga arko inta badan waxaa la arkaa rag anigu marka siyaasadda soo gelayay eedada waa la tashan jiray waxaa weydiin jiray marka laga hadlayo siyaasadda iyo qaybkays dumarku ku leeyahay siyaasadda marka sheekaysan jirnay waxaa ka hadli jirnay inay meel u banaanayn siyaasadda somaliland dumarka haweenka maanta waxaa rabaa eedada u sheego ama kule boos weyna xisbiga oo cid ka sitaa adna insha allah markay noqotid xildhibaanad waxaa jeclaan inaan hadalkaa kusoo noqono ya somaliland marka la eego sida maanta loo wada sheegay inta ugu badan ee dadka codeeya waxa weeyaan dhalinyaro iyo dumar anigu maanta waxaa jeclaan lahaa inaan la hadlo hablaha oo ah dadka marka la eego qaybta dumarkana dulmi lagu haysto qaybta dhalinyaradana dulmi lagu haysto laakiin codkooda meelna laga maqinin ama awoodooda la arkina anigu waxaa jeclaan lahaa inaa orto haddaan anigu maanta istaageerin yaana taageeraya haddaa la eego facebook iyo meelahaas hablo badanaa ku jira oo wax soo qora qoritaanka iyo qabyaaladaasa ka hadlayno maanta maku heshii karnaa inay ku bedelno taageerayaasha dadkaas leenahay ummaddan iyo shacabkeena wax u tari karaan insha allah anigu maanta de waxaa jooga dad amin dumar ama haween siyaasadda iga fikrad badan iga aqoon badan laakiin anigu waxaa oran lahaa inta badan ma aragno dad la diirigeliya haddaan nahay hablaha reer somaliland oo siyaasadda qof gacantana qabta oo na tusta sida kuraasida loo helo anigu waxaa oran lahaa maanta waxaa jooga de abla aadan iyo eeda sucaad iyo dumar kaloo safkan hore fadhiya maanta waxaa ku faraxsanahay inaan saf gaara haysano anigu maanta oo safkaryankana halkaas lagu kaseeyo anigu marka la eego international community-ga qof sucaad oo kale waxaa weeyaan qof loo baahan yahay saddexda xisbi inay u tartamaan anigaa u baahan tartan inaa helno musharaxnimadeeda laakiin siyaasaddeeda waxaa loo yaro arkaa marka la eegayo qabyaalada iyo qabiil laisku soo baxayo inay taasi jirin laakiin anigu waxaa jeclaan lahaa koley xisbigana si gaara waa ugooga hadlayaa anigu maanta diyaar waa rabnaa inay sacaada loo imitid insha allah eebe marka la eegayo siyaasadda lastki waxa marka la eegayo siyaasadda somaliland anigu weligii daweyd howlkayda la fadiyey dooda sameynanay aniguna marka doodii la gelayey waxaa laga hadlayey musharaxnimada golaha wakiilada marka anigu waxaa la imaaday constitutionkii qaybihii loorka ahaa anuu diyaarsanta waa soo fadhiista meeshii markaasaa lagu ortay waxan wax ma jirto waxaa la dhaha constitution waa qabiyo qoraal wax saas oo kale qabiyo qoraal dase
laakiin markaasaan weydiiyey meeshay ku qoran tahay constitutionka ilaa loo baahan yahay inuu suldaanku keeno meesha ma ku qornaa keliya waxaa ku qoran qofku markuu soo sharaxayo inuu baahan yahay asaxaab ya maanta anu waxaa oranayaa sucaad asaxaab badan way leedahay doorashadan ay diyaar garoobaya asalaamu calaykum raxmatullahi arrimaha dibadda xisbiga ciid ibaaqa abuun aseeshe munaasabadda aynu kusii socon doonaa kulley haddii maanta sucaad ay shaacisay musharaxnimadeeda ku aadan xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolka saaxil waxaa maalmaha soo socda iyagu sheegi doona isla markaasina tartan la geli doona oo qiiroon doona qaar ka soo jeeda gobolka hase yeeshee mikrofonka aan ku wareejiya hadda hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi xaaji cali xasan رب العالمين إنك مشرحة وضمان أخيارها هوين وحق الوالد الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحن سودي ومركة ورساحة سياسية كسودي وسعاد الله سودي مركة لبعضنا وحن كسودي وحسبها هنا دا ديارتنا اسكشرح له وحن كسودي وشرحنا إن شاء الله waxaan ku dhiirigelinayaa haweenka halka jooga iyo dhallinyarada iyo raggaba inay sucaad ku doortaan kartidooda iyo aqoonteeda insha allahu tacaala waxay ku guulaysan doontaa kursi wax meelay ku guulaysa hadduu khayrkuu yahay waa marka labaade haweenka oo cabatinku uu badan yahay inaanay saaxadii loo ogolaanin ama caqabado waaweyn ay ku gudban yihiin waxaan leeyahay wax walba wakti bay bilaabmaan waktigaana guul laga gaadhaa waxaa muuqataa inay tallaabooyin horey qaadeen haweenka reer somalilan oo ay meel fiican marayaan way fiicnayd inay halkan meel ka horeeya gaadhaan laakiinse somaliland waa ogtiina 30 sannadood waynu kuutinayna waxayd halkan meel ka horeysa inay gaadho sida somaliland u kuutinayso ayay barnaamijkiinuna u kuutinayaayo aanu halkaa doonaysay inuu gaadhin insha allah wuu gaadhi doonaa haddaad dadaashaan qofna lama gaadhsiiyo haddaad idinku ku dadaashaan inay gaadhaan dhacsataan oo u tacabtaan halkaa aad doonaysaan insha allah waa gaadhi doontaan waxaan u leeyahay waxa ugu yani hadda dhowaan laga dooday oo la keenay baarlamaanka arrintii kootada waa markii horeysay ay halkan soo gaadhay dood tayranka inta la tabageliyo laga doodo waan xasuustaa ilaa 3 jeer ayaanu berigii gudbinay oo inoo soo gudbiyeyna mar walba ay soo noqotay marka hadday iminka gaadhay oo tayranka laga dooday oo qaar ogolaaday iyo qaar diiday oo odayntii la sugayey dee bularka isla hortaago meesha wax laga karinayo waa baarlamaankii gabadh walibana iyada ama guriga ku haysa ama dhashay ama la walaale barnaamijkii baarlamaanka inta aanu codku soo bixin weli taan istaa haysataan meel fiicanna uu soo gaaray marka waxaan leeyahay haddii uu suurto galana waa alxamdulillah hadduu suurto geli waayana dee dadaalka sii wada waxa weliba xisbiyadu diyaariyeen oo ay ka dhigeen haddii taasu suurto geli weydo second option ama plan B laga dhigay in 18 haweene la sharaxo oo xisbi waliba uu soo sharaxo ugu yaraan in 18 ay soo sharaxaan waa nambarka ugu yar oo ay baarlamaanka u soo sharaxaan taasuna idinkee dadaalkeena ku xiran tahay mar labaad baan ku celinayaa sucaad inaynu soo dhaweynayno musharaxnimadeeda xisbi ahaan waanu ku faraxsannahay inaad saaxad siyaasadda ku soo biirto waxaanan ku leeyahay allah kuu geeriyo hadday khayr ku tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani xirsi xaaji cali xasan marka waxaa soo dhaweynaa musharaxnimada sucaad carmiye oo dhawaa u sharaxan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee gobolka saaxil hase yeeshee dhinaca kale haddii aan eego hadda waxaan u yeedhi doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska ee somalilan cabdirashiid ibraahim cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأقول دارنا أن كده هذا وسيرك وزارة أهلها هربنت ماليته وحقا بروتوكول كيسيري وإدارتي هذيك هذا وحمد على أنه قام يحرسنا كهر الله أن
intuusan hadal aan fariin gudbiyo dabeeta aynu isaga codkiisa dhegaysano dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa sucaad waa laga wada hadlay sidaa xaaladeeda looga warramay ayay tahay qofka bini aadamka ahi saddex shay ayuunbaa keena inuu han yeesho oo musharaxu noqdo inuu yahay qof aragti iyo mabdac cusub oo dalkiisa iyo bulshadiisa uu doonayo wax kaga bedelo sida oo taa inuu fuliyo doonayo iyo inuu yahay qof dhibaato bulshadiisa haysata arkaya hayana xooggii iyo muruqii iyo khibraddii uu dhibaatada ku suulinaya iyo inuu yahay qof soo shaqo tegay saddexdaas ayuunbaa jira sucaad waxaan ka marakacayaa inay mabdac iyo aragti sido inay had iyo jeerna ka hadasho dhibaatada bulshadeena haysata isla markaana ay taa afkaar iyo aragti cusubba ay sido oo labadaa hore ay sido maanta waxaynu u baahan nahay 30 sano aynu soo dhismaynay waxaynu u baahan nahay inaynu golayaasheena wakiilada iyo golaha deegaankaba inaynu keenno dad aqoon leh oo dunida la jaan qaada dad khibrad leh oo soo shaqeeya muddo waayo-aragnimo lahaa iyo dad noloshoodii soo maareeyey saddexdaaba sucaad way leedahay waa ta koowaada waa gabadh aqoon-yahana waa ta labaada nolosheedii iyo tii qoyskoodaba waa gabadh soo maarayso diyaar u ah dadkii inay wax ku celiso mar haddii ay sidaa tahay markaa in la taageero haweenku ay si guud u taageeraan bulshaduna ay taageerto waa lama maarmaan hadalka waan soo gaabin waa laba eray baan ka faa'iideysanayaa xildhibaan xaamidna waa la hadlayaa iyo xildhibaanada madasha fadhiya hogaamiye xirsina waa la hadlayaa waxaan uga hadlayaa wax kama bahe waa qoondadii haweenka xildhibaan xaamid wuxuu ka hadlay qoondada haweenka iyo xaaladdii maanta taagan tahay dheri bislaanaya oo xildhibaanka golihiisii yaalla oo haddii maanta uu codeeyo isaga iyo saaxiibadii ay haweenku 18 xubnood golaha ku yeelanayaan ayaa hor yaalay caawa waxaan ku xujeynayaa hadduu haweenka jecel yahay xildhibaan xaamid siduu sheegay inaynu buli ka eegno tiifiyada gacantiisa inay u codayso xeerkaa waxaa kaloo isna madasha fadhiya xildhibaan obama xildhibaano kalena way fadhiyaan xildhibaanada kale la arkayna haddii aan la dhaha haweenkiio xukuumaddu way keentay kootadii golaha ka doodo way taallaa codkiina waa gelaysaaye berri telefishinadaan waagna waxaynu ogaan doonaa markaa ciddayna jecel iyo haddii aan la dhaha cidda kale haddii aan la dhaha taasi waa taa hogaamiyaha xisbiga waddani waxaan isna uga faa'iideysanayaa dee xildhibaanay golaha ku leeyihiin haddii berri golaha la keeno xeerkii inuu caawa xildhibaanadii waddani ee ku jiray golaha nooga sii shaqeeyay si codkaa ay u ansixiyaan intaasaan isagana ka codsanaya haddii aan la idhaahdo maxaa looga baahan yahay koontada meel baan idinka tusaya qoondada waxaa looga baahan yahay bulshada waa inaan cidna laga tegin maxaan uga jeedaa waa in cidna laga tegin waxaan uga jeedaa bulshadanu waxay ka kooban tahay bulsho fara badan qaarkood dhibaatooyin baa haysta oo takoor aynu ku hayno ayay duruufo badan uga gudbinaayeen marka bulshada ciddii duruufaha gaarka haysteen haweenkooda arrimo dhaqan haystaan dadka jir ahaan naafada ah oo duruufo badan haystaan dhammaantood waxay u baahan golaha in la keeno maxay muhiim u tahay hal tusaalaan idin siinaya shuruucda ka soo baxday golaheena baarlamanka ama kan ha noqdo ama kii hore qaarkood baa dalkeena ceeb ku ah inay soo baxaan waxay u soo baxeenna wax kale maahee ciddii noocaa ahayd oo hadday golaha dhex fadhido ka hadli lahayd ayaan markaa ku jirin qodobbaa wuxuu sheegayaa qofka noqonaya musharax iminka dad baan musharax noqon karin dalkeenna oo xeerarka dalkeenu ka mamnuuceen in wax laga bedelana u baahan maxaa ka mid ah qofka musharax noqonaya waa inuu fayow yahay maskax ahaan waa inuu caafimaad qabaa waa inuusan laxaadkiisu dhimayn waad eega golaha haddii dad laxaadkoodu ay uu dhiban yihiin dhex fadhihi lahaayeen waan ka daayada ohan lahaayeen haweenka waxaanu doonana markaa inay saas oo kale arrimaha saameynaya ay dee ka hadlaan ay golayaasha xeerarka desinaya saameyn ku yeeshaan aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أنا ماسية اسمها جودي وسارتها شقدي رماها في شدي قيس في سوماليلاند عبد الرشيد إبراهيم عبد الرحمن أصلي شق ضد مناسبتها ونكسي في سعودنا صوت سنة سوماليلاند جبتي وحيكسوا على معشيس في التناسل يصير كله استقدرين أي غير كيس وضعتي
hase yeeshee sucaad maadaama aysa soo sharaxday waxa uga fadhidaa dhigeeda kale ama ragga kale iska soo sharaxaya inay xilligan u tanaasulaan maadaama aqoonteedii iyo kartideedii ay maanta u horeyso qaranka jamhuuriyadda somalilan hase yeeshee marka waxaan oolayaa xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan oo loo qoran inuu yahay indhaydo oo ka mid ah xildhibaanada gudaha guurtida somalilan الرحمن الرحيم عوض عربي بدنا نوع في إنجليزي بنقول وحلوة هاي لندن ladies and gentlemen أيدي يا حامد يبقى يظهر في عربي يقبل بي الصومالي هنا والله يقبل بي سيدا درادي وحن السديق بل إنجليزي هو الرئيسي شرير هبوها أنا هذا الرئيسي أفضل بهذا الشيء وحن كسراني وعطيت الكيسة والوقت صوبين الرجل يجوري فرح بدنا إبنانته يهبوه صوبين سعاد عربية لما يعني وحنا سعاد يوسف قرية طارق سيرة أول ما هاي هذا يبدأ يتهاي المرتبة من هاي دوا سيدي سوماليلاند qofka kaliya isleeyahay aduu ku soo wareegaysaa su'aal marka dumarka la eego saaxiib gaaraan noqon doono markay golaha timaado insha Allah aad iyo aad baan u soo dhaweeyay Cabdullaahi Geeltiraan ugu horreysay wuxuu yidhi Togdheer iyo Burco iyo Hargeysa Cabdullaahi waxaynu eegaynaa markay su'aad marayso gobolada buuhoodle sool xaysilo iyo sanaad afartaa gobol markay marayso waa toddoba wixii kale lagu darayo halkan uu furayay ama afartaa waxaan sameeyey waaga maalintay marayso waxaan u soo noqonayaa mawduuceena horta caawa su'aad waa koob waa loo tartamaya saddexdii xisbi xirsigu hadlay labadii xisbiya kaana way fadhiya xisbiga ku guulaystay eegdooda waxaan uga ka baxayaa waxaan ogayaa arrin yaroo kale oo aan ahayn tartanka horta waxaanu ka hadlaynaa meesha ay sucaad imanaysaa waa meel sharci bini aadamka khuseeyo lagaga hadlay maaha meel siyaasad lagaga hadlay halkan aamida milge iyo ariise iyo waan arkayaa sharcigani markii uu golaha wakiilada ka soo baxay ee golaha madaxweynaha ka yimi xilligeedii waale cidda uu gacantooda ku burburay golaha guurtida raaligelin baan ka bixinaynaa maanta maalintaa maanaan garanayn wadankuna wakti horena leeyahay weliba si gaara ninkuu gacantiisa ugu burburay aniga wada fadhiyaan admin maanta waxaan leeyahay war meesha si ay dumarku doonayaan horta siyaasad lagama hadlayo shuruucdaa lagaga hadlay yaan laydin qalbin dumaro annagu xanuunadeena isku mid maaha waa ogti sharci baa la marinayaa waa bini aadmi bini aadmigii qaybtii ugu badnaydna waa dumarkii iyo dhallinyaradii haddii la yidhaahdo meel dumarku ogaanay ka qaybgelayaan maaha wax badan baa qaldamaya xanuunkeenu isku mid maaha fasaxeenu isku mid maaha carruurtii waa laga hadlayaa sharci baa laga hadlayaa fasaxa xitaa isku mid weeye innaga dastoorkeena waxaa ku qoran maalmo gaara laakiin iyaga diinta islaamku fasaxa waktigaysiisa waa garanaysa waxaa loo baahan yahay dumarku yaan laydinka dhaadhicinay siyaasad baa laydinka qaybgelinayaa waxaa laydinka qaybgelinayaa bini aadamigana siduu sharci ugu noolaan lahaa sida diintu sheegtay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay soo jeedintii axsaabta iyo madaxweynaha ee 18 qof ahaa
كل أنا ذهب لحل ديواني هذا ويشاء يعني ذاته فضيها سعاد عاوة أنا أنا وفضيها وأبنها نحن تابعين إن سوتشيدين وهو كل صاحبين فضيان وقعد سنة بدأ نودي برجي هرانا نقول عليه إن أنا يجي كنا بكبعين إلى سوق الإنسان وتبع الشرع وأنا كعبر الله وكيل حتى واحد في السنة والشرع waxaan ka sheegayaa shuruucda qaarna iyoano dumarkay xidhayahay qaarna waano dumarka way fasaxaya ma taalo waxaynu ansixinay sharciga la yidhaha national human rights commission hadda waxay nooryahay anaakii oo kale war sharcigii aynu shalay dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay 7 qof ugu ogolaanay muxuu ka duwan yahay doorashooyin 7 qof baa laga helay 7 qof waxaan 3 waa inay dumarku wintooda yeeshaan haddaba 7 qof waa 3 dadkii laga tirada badnaana sharcigaynu ka dhignaa waxaynu niri hal baybayni 3da kalena waxaynu niri hawlo tartamoo ragga ha qaato wintooda baynu siin kuwii laga tirada badnaana hal baynu siin maanta 8 qof ayaa 8 loo soo qorayo sharci xidhaya shalay aayad leena ku fasaxnay taa inaynu ku fasaxnayo doorashada oo aynaan dumarka ku tacadin waa la qabaa xisbiyada iyo madaxweynaha laakiin dee maalintii hore waxaan olaan garaynayna idinkuna naga raalli ahaada insha allah doorashooyinkiina way geli doontaan kootadaana sidii xirsi sheegayay waa la qabaa inaynu idinkuna dhaqdhaqaaqin way fadhiyaanaanina iyo daraawiishtooda waydin arkaya sucaad anise waan arkayaa wadaynan arkayaa armihii safiiradaha waan arkayaa intaanan idinma wada tarin karayaan baynu garanayaa dhammaantiin waxaan idinleeyahay soo dhawaada aad iyo aad baa mahadsanti guddiga dheer maxamuud cali salamaan ramaa ismadaasina xubnaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ee ucid محمود علي salamaan ramaa xubnaha arrimaha bulshada xisbiga mucaaradka ahinaasihay waxa uu ahaa boosaabadii ugu muddada dheeraad ee soo mara gobolada garooley saaxiib togdheer sanaag iyo sool maroodijeexa u harsanay ayuu dhinaca mucaaradka u digaratay waxaana hadaladiisa inta badan ka dhawaanaysaa xaargalo inta badan maxaafura hase yeeshee munaasabadda aynu ku sii socon doonaa waxaynu haatan u yeeri doonaa cabdiraxmaan axmed cumar oo ka mid ah aqoon-yahanka cabdiraxmaan ujeedaan kulayaa munaasabadda aynu kusii socon doonaa haatan waxaynu u yeeri doonaa aqoon cabdi gaboobe oo ka mid ah aqoon-yahanada somalilan isla markaasina ka sintan dhinaca aqoonta raxiim dhammaan marti sharafka halkan isugu timi una timi xafladda iyo shaacinta musharaxadda ila carbiye saacad carbiye oo ka sharaxan gobolka saaxil kollay sida boorka ku qoran oo xawaamisna aniga xibsaalka iska weydiinay hargeysaaday ciidan aad u badan keenaysaaye ina tamaynu hargeyse keeno runtii waa magaalo xeebeeda iyadaba dadku kuma yaree berbere laftigeeda waxaan aaminsanay maantadi inay ka soo bixi doonto sucaad oo runtii aanay ciilqab kaga dhiman doonin ama ku khasaari doonin isarcaadooda marka hore anoo ku hadlaya madaxa xisbiga ucud waxaan ka cudur daaranaynaa guddoomiyaha iyagii oo halkan maanta lagu soo casubay in jaamacaddii burco oo laga qalin jebinayo barrito uu baxay
sidaas daraaddeed buu yidhi mujtamaca isugu yimaada iyo sucaadda iga gaadhsiin in uu maqnaaday laftigayga raaci laanaad intaasaan u soo hadhay marka horta raayaa laga ahdo odaygii kole aad buu inooga quslin yahay raalli naga ahada waxa kalean runtii kala mid ahay saaxiibkay xirsi geeljire madaxda xisbiyada mucaaradka ee halkan fadhida iyo inta naga maqanba in haweenku ay helaan hootadooda inay helaan iyo inay talada dalka iyo weliba xaqaasatan sharci dejinta iyo dowladaha hooseba ay ka helaan kuraas mugle waxaynu soo aragnay inantii gabiley ka ahayd maayarka ka ahayd waxay qabatay waynu soo aragnay hablaha xafiisyadu fadhiyaan inkastoo adeerkii sacad fadhiyo dee samsamina waa ogeydeen oo halkan waan ka salaamaya runtii inkastoo wasiirkiisa kale u fadhiyo waxaan aaminsanahay kay fidin jirtay kolay imika reer galibaan oo xaggaa iyo burcaan u badan oo meel walba waxa weeye samsam xaggee joogtaa unbay ku odhanayaan dadkii xaggaa jooga marka waxa weeyaan runtii dadaalka iyo kartidii xilligii abaaraha weliba ay ka gashay sirsamsam marka runtii waxaan dhammaan salaamayaa hablaha ama aan dheeri gelinayaa in ay habluhu u soo diyaargaroobaan kuraasta kollay rag badan way kaga wanaagsanaanayaan waxaa tilmaamayaa runtii meesha la tegayaa horta meel lacag laga qaato maaha waxaad moodaa qaabkan reerihii isugu xiibsan yihiin iminka ninka uu dheer ka nastay wuxuu jecelyahay magaaladu inay yeelato giriiniinta inay yeelato wayr inay yeelato jaban biyo wanaagsanna inay yeelato qurux bataan laakiin marka raggii wax garanayay iyo hablihii wax garanayay mid waliba gabtayo oo aanay sidaa sucaad xagga hore iskeenin dee leyd wanaagsanna heli mayno waddo wanaagsanna heli mayno raggii waaweynaana wuu gabanaya wixii qabiil baa lagu xirayaa kolay adu 6 gobol baan soo maro waa maqlayseen maalinaa ka hadlayaa lahaa goorama inuu maayar ka noqdo waa xaaraan inankaani ahaan jiray oo dugsi hoose dhexi ka soo bixin runtii innagana waa inagu nuqsaan in 82 xildhibaane iman doonaa ay noocaa noqdaan marka reernimo wax lagu qaybsanayana way noqonayaan runtii sidaa daraaddeed waxaan u sheegayaa ummadda reer somalilan inaanay helaynin waxa ay doonayaan ee wanaagsan inaanay helaynin markay aqoontooda ridaan markay intoodii wax garanaysay ay xagga dambe fadhiisato ee nin waliba ka boqo ololaha inuu galo sucaad waxaan ku hambalyeynayaa dagaal adag bay u soo diyaargarowday dagaalka adagna marka horeba iyadoo kollay siyaasadda markii madaxa la gelinaayo ay iska maad badan tahay adeerkaa dhowr kelmadoodu ka yidhi ayaan aniguna caawa talo ku siinaya adeeniyo fadhiin degeladii saaxil oo hilka doonaya inaad diyaafad kariyo oo duulla ima waayibu waxaan u sheegayaa halkaa hiil baanu ku nahay maanta inaanu kuu helin doono codka kuugu helin doono xisbinimo kuugu helin doono aad baanu u doonayna inkastoo saaxiibaday oo hore kuu codsadeen inaad xisbiga iyaga noqoto waanu dagaal caddaana galo waxa uu kelmadihiisaa ku yidhi marxuumkii igal walaalnimo ninkii dilay hadduu cabadintee waayo qaar badan baa imika odhan doonaa ma xafladiibaad tagteen aynu iskaranayno walaalnimo ninkii dilay hadduu cabadintee waayo xaajooyin duugaaday oo daalay baa iman waa lay dabqayaa inaan dulo ma doonaynin waxaan kula garab taaganahay hil iyo hooba hadday noqoto gobolkii aynu ka wada nimi iyo hadday noqoto xisbiga iyaga oo runtii aad ugu dadaali doonaa inaad ka mid noqoto kursigaaguna annaga waa naga diyaar hadeerto maxamed xaasha ulaheedi abnaa uma ogolidin afar inay iska sharaxaan wuxud baanu u ogolay
gobol walba usoo diyaargarooda. degdego baalka marna waan soo gabaydeegtaa marna in baan ku yaro darsadaaye intaa hore dardaarankaygiibu ahaa aan siinayo su-aal aan leeyahay aan quusanin weliba kuwa sidaasa haddana waxaan leeyahay aan degdego daryoolii samee aan degdego daryoolii samee dheri daba aan saaro idallici haddana aan ku dilo oo aan dabi kuu qaado ragga qaarkii ka yeeli mayno waa salaamantihiin dalkana waa la wada leeyahay nin waa soo bixi kartaan nin kasta oo wax doonayna waan dhiirigelinaynaa hablo waan soo dhaweynaynaa waxaan ballankaaga qaadayaa inaan kaaga eliyo gobolkaa anagu kolley qoladii reer buucana way fadhiyaa waxay idhahdeen ciise muuse markuu afartanjir noqdaa buu reer berbera noqdaa anigu reer buucanahay saacadda waa reer birao laakiin berbera waa kula xoraynaa laba sano. الرحمن الرحيم مرتبة شرفت له aad iyo aad baan idii salaamaya waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta aniga waa farxad gooniya sidaan midkeena dhammaan u faraxsanahay inaynu isbarbar taagno oo sharafa noo tahay inan aynu wada garanayno weliba anigu gaar ahaan mar adeer baan ahay mar awoow baan ahay mar abti baan ahay marna saaxiib dhow baan ah oo macrifad badan badan baan leh runtii inay sharaxdo sucaad carmiye maanta waxa inoo tahay somaliland waa iftiin u bayaamay oo hor yimid oo tahay inaynu korino oo aynu kor u qaadno runtii hablaha iyo minority-ga waa mashaakil inu hor yaalla oo dhibaato gaara leh hase ahaatee mujtamaceena guud ahaan markaad eegtid dhibaatooyin badan baa yaalla dhibaatooyinkaasna waxa ugu wacan inta badan waa aqoon daro iyo burburkii nagu dhacay yaa dib 50 sano dambe nooriya marka dumarku si gaara waa inay ogaadaan inay dulqaataan oo iyaguna ahaan dhibaato ahayne mar xagga raggay tegaysaayoo dabaatan qabiil baa la isku roogaya haddii qofkii fiicnaa la qaadan lahaa ayaa waxa la eegaya qofka u nugul amba cuqaasha amba hadday doonto siyaasiyiinta axsaabta mararka qaarkood oo odhanaya hebel intuu la hadlo guddigii reerka hebel noo soo saara iyo hebel reeba taasi lafteeda macaa ragga way qabaan marka waanu taageersanahay hablaha inay hor yimaadaan in qaybtoodii siyaasiga ahayd maadaama uu mujtamac ahaan aanay ku heli karayn si toosa in amba kooto loo sameeyo axsaabtiina sida la sheegay imika waa diyaar waa raalli marka aad iyo aad baan u soo dhaweelaynaa sucaad iyo wixii la mida ee aqoon-yahana inay soo dadkas iskeenaan anaguna gaar ahaan goobtiibo xagga kambeynka laba madaxweyne ayaa qayb libaax ka qaatay labadan ka jooga iyo kii ku horreeyeyba marka taana wax lagu bishaaraynaya sucaad inay wixii
aragnimadaina inaan ku caawiyo oo nalba isla garab taago oo hur iyo hooba wixii karaankayga inaanan marnaba ka hagran saxaab ma waxaan oranayaa kaftan ahaan insha allah waad gaarayeen hanagu noqonin kuwa markay kursiga gaadhaan dadkii loo taageeray iyaguna eega kuwaana hanagu noqon hadalka badin maayo nuxurkii waa la sheegay munaasabad fiican baa noo dhacday labadii axzaabee mucaaridkana waabay anagoo jiraan kuguanahay weliigtama bixin kastoo meel dambaan iska fadhiido haddana weli kuguanahay oo rag badan oo kamid ah waaba generation cusub iyo dhiig cusub ayaa socda iminka dhiig cusubka hormadooda hase ahaatee kuwii kaleba kuwaad hore soo kooxooda anaga maantooda waa qawle marka kulliyaa weli ma hadlin maxaan jeeda mar ii kala daawin gaara labadii xisbee macaanid inay saxaad doonayaan way sheegeen fartu waxay ku duwan tahay waa xisbigeygii kulmiyeen taana bale anagu ka hordhaci mayno waa tiilo dee waa dowladdii baa jirta markaas jarajaro dheer ayay leedahay bal waanu ka shaqayn sidii taana jawaab har waafiya looga helo waa mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullah hase yeeshee munaasabadda oo gabagabo ku dhayso markaad dabalna ay hayeen isbitaasna munaasabadda ayuu hore ugu sii socon doonaa hase yeeshee marka waxaanu yeeri doonaa dhinaca dumarka oo leexan doona waxaanu yeeri doonaa la taliyaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ahna xildhibaan u sharaxan ka sharaxan gobolka murudijeeh xildhibaan fiise maxamed khaliid السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرتي شرفتا كسو قيب الشيء وشرحادا شاعين تيلا هوين كاوب قالسا سومالي لان وأقويها كا رقي دمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باند الله يحي سؤال عربية لسكو شيء مايو سؤال عربية هكا كاقا سومالي لان يوحي كتاقن تحي iyo waxay u soo qabatay waa la wada ogsoon yahay dumarka lagu daydo maxay heeday dunida aadka looga jecel yahay hadday dhalinyar noqoto hadday haween noqoto ayay sucaad ka mid tahay marka waxaan leenahay sucaad waad noogu horeysay xambaliyaanu ku leenahay waad soo dhaweynaynaa musharaxnimad waananu kula hawlgelaynaa waanu ku garab taaganahay haddaan haweenahay ani laakiin waxaan ku hadlayaa afkii xisbiga kulmiye haddaanu nahay kulmiye sucaad waxaan leeyahay garabkaagaanu taaganay gaashaankaagaanu taaganay waanu kuu baahannahay waanu kuu baahannahay kursigaaguna banaanku laga yaalaa hablahaa kale loo xidhay baad ka mid noqon doontaa insha allah biidnillaahi kariim haddii ay fuliyaan golaha wakiilada sida fiican uu ka mid yahay adeerkeen uu yidhi diyaar baanu idiin nahay gurida idinka muuqan doontaa inay diyaar noo tihiin iyo inaanaydu noo hayn dumarkiina iminka haddaanu nahay haweenkiina waxaanu fahanay siyaasaddii waanu fahanay awrkaa marka hore waynagu kicistaa tii waanu diidnay maanta codkayaga dumar baa leh hawshayaga dumar baa leh maalkayaga dumar baa leh manfacayaga dumar baa leh intaanaydu meesha ku fashilmin haddaad tiin kuwa soo socda iyo kuwa sii joogayda iska diyaariya qoondada haweenka loo qoondeeyey haddii taa la waayo inuu xisbi walba ha ku talagalo inuu haweenka soo sharaxo uu qaato uu ka horraysiiyo ragga hadday taasi dhici weydo ood heli maysaan xisbigana ha ku talageli anagu kulmi ahaana sucaad waxaan leenahay waanu kuu taaganahay soo dhawow waanu ku garab taaganahay hiiliyahooda waanu kula garab taaganahay dadkaaga iyo bulshooyinka iyo haweenkuba ku soo dhawow waanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
2020 inay ka qabsato gudaha caasimadda. بسم الله الرحمن الرحيم ولا شيء سعاد أنا وأنا سي قدمتي وأنا كلها بين كده ويدا قدرنا قبيل كوا وذتشبيننا كلمة دي لوجو الرئيسة وين كانوا هبينيا أو وين كمان تحل باسارن هالحلالة والسعاد ودرتي أنا قلت مرة بدنا وين كان لها اللي يوان شاقي كيوبا مركز اللي قلت شريد دورشيد اللي قال لها وين كان كيوبا قبيل كمركز دربانك لو توما ينا دربانك وقود واقع دار دمركا قراعة لبدا اسكول إنيسان إنا تلاحظان وحن دون لا تلوى بلكنا مقيب كاهانو إنا قيب كاهاتان وحايدين كان دين بناهين وحدن كتهين إنا وقض إيسان لبقلو ودحدين يدلشو دحدين تيدلشو دون يدين مقويسو كرسينا يدين مقويسو markay ugu yartahay inaad qabiilka isku sharaxdo xitaa kuma goyso qolada aad u dhaxdayna kaaga ma goyso inaad isku sharaxdo waayo aad u dhaxday carruurna aad u dhashay haddana labadaa qolunba way qaybsantiin qoladaa ka dhalateen iyo qoladaa u dhaxdeen codkana 30 sano ugu dambeeyay labadaasaa ku bixinayseen dalkan haddii la rabo inuu isbedelo laba qolo waa inay isbedelaan haddii kale Soomaaliland sideeday ahaanaysaa haweenka iyo dhalinyaradu waa inay isbedelaan siday codka u bixiyaan waa inay bedelaan siday dadka u taageeraan waa inay bedelaan siday wax u arkayaanna waa inay bedelaan haddii taasi ay dhici weydo arrimahan kootada iyo anigoo waxba ka qabin in koonto laydin xidho oo dhaqanka idinku saa u kala daadsan tihiin laakiin tiro kuma tihidin dee in koonto laydinku xidho idinkaa dadka ugu fara badan hadday socodaynaysaan sucaad maanta hortiinay joogtaa halxidhaalahaana way dirtay hiilla way idinka filaysaa aniguna waan idinka codsanayaa in ayadoo u codaysaan aniga ayaan xitaa u codayn taasi waa haweenka talabaadna waxa weeye dhalinyaradu mustaqbal bay doonaysaa nolol wanaagsan bay doonaysaa dhalinyaradu laba isku heli mayso inay mustaqbal wanaagsan doonaan iyo inay markay cid dooranayaan ay qabiil ku doortaan qofka qabiil wax ku doortaa laba ma kala dooran karo laba qof isma barbar dhigi karo aqoontooda isma barbar dhigi karo qofka iskama humin karo qofka ma eegi karo qofkan inuu yahay qof u qalma oo noloshu u baahan u samayn karayna uma fiirsan karo waayo maanka iyo maskaxda laga haystaa labadaa xer kama aha dhalinyaraduna iyaguna waa inay xoroobaan waa inay isbedelaan codkooda se u bixinayaan waa inay wax ka bedelaan waxaa intaa ii raaca walaalayaal oo maalmaha soo socdo la tijaabin doono in dadkani ay isbedeleen inay sidooda ahaanayaan dadkan idin hor yimi ee soo sharaxay rajada jirta waxa weeye dad kaloo badan oo fiican oo naga wanaagsan inay hortiina iman doonaan halxidhaalo wuxuu noqonayaa ma dadkaa wanaagsan baa la dooran doonaa mise waxaa loogu sii xidhnaan doonaa kontiinar aan daaqada lahayn oo lagu dhex baktiyayo qabiilka Somaliland labadun bay kala dooran ama qabiilkii wax ku doorano sideedii bay ahaan ama qabiilkii ka xoroobi doontaa oo waxay noqon doontaa dal wanaagsan oo horumarsan oo adduunka ka duwan oo wixii loogu soo dagaalamay ee Somaliland loola soo celiyo Soomaaliya loogu soo gooyay laga helo haddii taa la diido oo si aan la samayn waayo garan maayo isbedelka la doonayo garan maayo isbedelka la doonaya sida uu ku imanayo ee Somaliland ku imanayo sucaad dadka reer Berbera waa hadlayaa reer Berbera way nasiib badan yihiin walaashii sucaad oo in badan aan istaqaanay inay doonayso inay gobolka doorato anigu Hargeysa la jeclaa in Hargeysa iska saxdaan jeclaa Hargeysa ma wada joognay xoogaa loo wada ahayn laakiin dadka reer Berbera maanta sucaad way u hiiliyaan way codkii inay ugu hiiliyaan way waa inay qabiilka doonaya inay go'aan ka gaaraan oo ay qaadaan xuquuqda qofku iska leeyahay Somaliland xuquuqdaada waxna waa dooran kartaa waana lagu dooran karaa qabiilka xaq uma laha qodob dastuuriyana uu jebinayaa qol yar intuu galo inuu yidhaahdo sucaadi isma sharixi karaysid waayo reerku waxay go'aan ku gaareen qof kale inay qof kale sharaxaan gidaarkaa waa inuu dhammaanteen wada diidnaa anigaba qaar badan baa iga horreeyey maalinta aniga iga soo goday baan sharaxay qabiilna lamaan soo tashan insha allahu tacaala dadka noocaasa baa guulaysanaya doorkan laba nin oo kala doora inaynu qabiilkeena iska caabudno dadkana beenta ka dayno noloshu sidaa inoo ahaato iyo inaynu hal mar runta isu sheegno qabiilku inuu ina wadi waayey Somalilandna wadi waayey horumarin waayey inagana ina midan waayey
qabiilku ha dhaco dadka wanaagsan ilaahay ha kor yeelo inta xunna ilaahay ummadda ha kor dhaqaajiyo sucaadna ilaahay guushaa siiyo aad iyo aad buu mahadsan yahay aqoonyahan cabdikariim axmed mooye xilli xafladda iska gabagabo dhinacdaa loo qoolaalinaya oo dhinacda dadkooda eegayaan intaanan masraxiyadda ku soo dhaweyn musharaxadda caawan martida u nahay waxaan doonayaa inaan yara ta'kiidiyo oona adkeeyo kelmaddii uu ka dhawaajiyey iyo maansadii uu tiriyey maxamuud cali saradaan ramaax qadiyada uu sheegay ama arrinkaa ku dhawaajiyo arrin xaqiiqo ah weeye waxaynu ku caddaynaynaa sucaad carmiyo odowa waxay u taagan tahay in qaranka somalilan oo dhan uu doorto qabiil gaar ah halkan uma fadhido taa waxaa tusaale ugu filan haddaynu tiro koobno dadka xafladda joogaan idhaahno imise isku xaafadii waxaa laga yaabaa 10 qof wax ka yar in la helo taasi waxay tusaale u tahay inay u taagan tahay inay noqoto xildhibaan qaran oona ah nidaamka saxda ah oona cid u dooran karno sidaa uu sheegayahay maxamuud cali sanadaan uu leeyahay hadda waa la odhan doonaa maxaa loo yimi ama maxaa looga hadlay rag fara badan baa lama haystaa maxamuud uu halkan fadhiyo maxaa u tagteen xafladaha CC kamera ku xidhan tahay marka xaqiiqda ma wada hadlayaan si aynu diyaarka u jebino waxaan doonaynaa intayna caawa xafladda joogta aynu ka bilaabayna intayna meel fog wax ka yidhi imisaa diyaar u ah inay qarannimada adkeeyaan imisaa diyaar u ah qarannimada inay adkeeyaan imisaa diyaar u ah qabyaaladda inay hoos u dhigaan imisaa diyaar u ah somaliland inay yimaadaan xildhibaano lagu soo xushay aqoon karti waayo aragnimo iyo siyaasad bisil imisaa intaa diyaar u ah maadaama intaa diyaar u nahay waxaynu ka bilaabaynaa caawa waxaan ka codsanayaa inay dhammaantiin noqono wakiil iyo safiir sucaad safiir ah oo keliya maaha iyo dadka la aragtida ah shaksiyad maaha dadka la aragtida mabdaca qarannimo dadka aaminsan saasay wax ku noqon kara waxaan ku soo dhaweynayaa musharaxa aynu calaamartina u nahay si ay nagu soo gabagabayso xafladda oo inoo soo xidho sucaad carmiyo odowa sacab diiran هذا يدرس الولاية فليتفضل مشكورا. مدنيال يا مريموين وزيرك مركز الشرف له محل هذا إن بدن بالغها ما يفوها وحنا هاي وحاسو إن مرة مسلمين وحاسو أمانة دفعوا هيا ومهتمين ما كانت مكارة وحدوني إن دمانتين إذا السلامو وسيرة مدحنا بار فوها الحسبية بارلمانتريانسكا إن قدسك دن شرفت له ماموس كله وحدوني إن ندراه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنت ممكن ضعفه qofkii bini aadamka mahad celiya ayuunbaa ilaahayna u mahad celiya waxaan maanta halkan doonayaa inaan mahad celin ballaaran u fidiyo dhammaan dadkii soo abaabulay soo qabanqaabiyey xafladdan sharafta leh maamuuska leh gabdhihii xabad uma sheegi karo dhalinyaradii iyo wixii dad nagu encourage gareeyey inaan xafladdan qabanno waxaan sidoo kale aan doonayaa inaan mahad celin aan la soo koobi karin aan u diro dhammaan dadkii isoo supporterska ahaa igu dhiirigeliyey inaan halkaan taaganahay aanan ka dhaqaaqin inaanan baqan inaanan odayga u jebin waxaan helayaa telefoono iyo maxaa la yidhahdaa social mediaha dad igala soo xidhiidhayay dhalinyaro leh haween leh dad waaweyn leh dad yaryar leh dad dalka jooga leh dad dibaddaba maqan leh ee ilahaa sucaadey waad ku mahadsantay inaad soo sharaxdid yaanan duniyad jebinin halkaa ka wad muxuu ahaaye waxaad loo tahay rajadii baa tahay intaba waxaan doonaya dadkaasoo dhan inaan idhaahdo
aada iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan gaar ahaan siinayaa muxuu ahaa mahadnaq gaara siinayaa dhalinyaradii reer saaxil markay odayaashii yidhaahdeen halkaa mar isoo garab istaagay ee yidhi annagaa kuu joogna ee halkay wada taagan maanta mahadsantihiin in badan baa dadku ka sheekeeya ama la isweydiiyaa siyaasadda maxay sucaad ka rabtaa anigu waxaan ku koray family siyaasadda aada iyo aada ugu ballaadhan dhinac walba iga soo gashay hadday aabbahay noqoto hadday hooyaday oo ahaan jirtay muxuu ahaa opponentka ugu weynaysiyaa bare markaan yaraa urursan jirtay cajiladihii gabayadii deele ee hoostaas kala socon jirtay snm maruu rabtay in waddankao dhan oo la xoreeyey ay aragto oo siyaad bare ka tago inkastoonay fursaddaa u helin nasiib daro ayaa horta waxaan ku kooray guri muxuu ahaa siyaasaddu ay tahay mid laga wada hadlo faamiliyo badan oo dhinac walba iga soo galo oo cumar cabto lahoo cigaal lahoo cid walba leh ayaan anigu muxuu ahaa kasoo jeedaa so waxaa kaloon ku koray guri aan doodo oon aabbahay la doodo waay wax walba waay odhan jiray waxaan xasuustaa anigoo yaroo 4 jir oon aabbahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam aabo ilaahay nebiga miyaanu jeclayn way xasuusin jiray mar kasta markaasuu igu yidhi may wuu jeceli oo haddaan muxuu u dhintay ya marka waxaan kusoo koray guri xor lagu yahay oo su-aalaha noocaasoo kale inta waalidka la weydiiyo waalidku si wanaagsan uga jawaabi jiray baan ku koray markii aan muxuu ahaa hamba qaaday ama aan yaraa horta dad badan baa leh maxay sucaad hargeysa isaga sharixi weyday waa run hargeysaan ku koray malcaamad ka galay iskuul ka galay geed aan beeray markaan 5 jirka ahaa weli hargeysu ka taagan yahay telesom haddaa aragteen geedka baxrasaabkee ku yaala dabadiisa ee baxrasaabkee weyne jiridiisu aad ka weynaatay markaan 5 jir ahaabaa layga soo siiyey iskuulka maalintii dhirta 2 geed bay ahaayeen kaasaa ka safaagaroobay dagaalkii marka horta reer hargeysa dhaba baan ahay laakiintiise waxaa la yidhi waa in la aftirsadaa abtirsiintiiba waxaan doonayay inaan maro dariiqii traditionalka ahaa ee muxuu ahaa wax lagu dooranayay haddaan u soo noqdo my experience waxa weyaan anigu waxaan ku koray hargeyso oo operation ku jirta waxaan siinakaygii iyo carabnimadaydiiba usoo taagnaa operation ama gumaysi waxaan usoo taagnaa cadaalad daro waxaan usoo taagnaa caafimaad daro dhakhtarada oo aan dadkuba teginba oo dhakhtarra aanay jirin waxaan usoo taagnaa iyada oo educationku very poor yahay somaliland waxaan usoo taagnaa iyada oo wax horumaray jirin ilaa la gaadhay heer aanay dowladda provide garaynin electricity oo dadku generators lahaayeen waxaan usoo taagnaa iyadoo hargeysa warqada dhaqdhaqaaqa la qaato waxaan usoo taagnaa hargeyso laga qaxay oon ka qaxay oon ka noqday refugee oon ku maqnaa waddanka ka maqnaa muddo 20 sanadooda marka horta siyaasadda iyo maaragtay passionka aan u hayo dalka waa wax aan iminka igu soo kicin oo ahaa journey dheer oo aada u fog oon kasoo bilaabay markaan qaxay ingiriiska u qaxay weligay waxaan ku hameeyey 24 sanadoodan maqnaa waxay ahaayeen 24 sannadood isu soo diyaarinayay saan waddanka ugu soo noqdo oo wax ka qabto oo noqdo dadka horumarkeeda iyo cadaalad dhiskeeda iyo dowlad dhiskeedaba ka qayb qaata marka aan soo noqdo maan rabin marnaba inaan shaqo ka raadsado somaliland diyaar umaan hayn inaan NGO shaqeeyo diyaar umaan hayn inaan muxuu ahaa dowlad shaqo ka raadsado ama shaqo dhalinyarada somaliland loogu talagalay inaan aniguna competition la galo kumaan tala jirin waxaan rabay inaan ama number aan noqonin oo aan noqdo qof muuqda oo society-ga ka muuqda oo wax ku soo kordhiya ama aan iskaga noqdo dalkii aan ka imid marka horta in badan baa dadku iweydiiyana yidhaahdaan muxuu ahaa sucaad siyaasadda maxay ku falaysaa iyo maxay halkan ka timid iyo xagay ku socotaa iyo dad badan baa xitaa i yaqaana ajnabi oo aan ingiriisi igula hadlo marmarka qaarkood laakiintiise dhuuxayga iyo dhiigaygaba waxa weeyaan
laba wax baa ii ah tiirarka aan ka guulo ama ah valuegayga ama core value waxa la yidhaahdo midna waxa weeye diinta midna waa dalkayga iyo nationalismka waxaa la isweydiiyaa marmarka qaarkood somaliland dhismaheeda ayaan anigu aada iyo aada u jeclaa inaan ka qayb galo dadku marka ay ka hadlayaan siyaasadda waxaa looga hadlaa si aada iyo aada u qaldan oo aan doonayo waxyaabaha igu kalifay inaan maanta isu soo taago halkan ay ka mid tahay marba waxaa dhacday nin siyaasiya wuxuu igu yidhi siyaasaddu right iyo wrong ma laha is what works laakiin sise haddaan nahay ummad ku dhaqan diinta islaamka waa inaan sax iyo qaladku ku jiraa oo aan saxa iyo qaladku aanay dadka iskaga qaldamin anigu markaa waxaan isu soo taagay inaan noqdo qof aanu saxa iyo qaladku iskaga qaldanayn oo aan noqdo waxaan ku diyaar u ahay inaan ka qayb galo in isbedel yimaado dalkan wuxuu u baahan yahay isbedelka aan doonaya inaan ka shaqeeyana waxaa laga yaabaa inaan anigu midhaheeda guranin sidii dadka iga horreeyey waxaan diyaar u ahay inaan intan maanta u tabaxayso isbedelka imanaya inaan usii jeexo generationka iga dambeeya haddii ilaha yidhaahdo dadka inta badan ma fahamsanaa dowlad positionka iyo qofka hamigiisa siyaasadeed ma fahamsana iminka intii aan ku jiray xilligii xulashada la xulanayay muxuu ahaa xagga reeraha dad badan baa ii yimid sucaade aan ku raadino wasiir aan ku raadino muxuu ahaaye maxaa la yidhaahdaa position dowladda kaaga raadino aanu safiir kaa dhigno waxaana adigu tanaasul laakiin waxay ilowsan yihiin siyaasadda laba siyaabood baa lagu galaa dadku ama waxay doonayaan position waxay doonayaan shaqo marka haddii laga dhigo la taliye iyo haddii agaasimo laga dhigo iyo haddii minister laga dhigo uma kala duwanaa wuxuu doonayaa waxa weeyaan position in dowladda ka qabto dadna waxay siyaasadda u galaan calling meel baa looga yacni waxbaa jiidanaya jiiditadaasi waxay tahay inay keenaan isbedel meelaha isbedelku ka iman karo ay ka mid tahay baarlamaanku ka mid yahay anigu markaa uma jeedo position siyaasadeed laakiin waxaana anigu aada u rabay inaan waddankan wixii isbedela imanaya aan qayb ka qaato iyo horumarkiisa in badan waxaa dadka iskaga qaldan waxaa micnaheedu tahay golo deegaan iyo golo baarlamaan saynu ognahay waxa weeyaan inuu matalo dadkii soo doortay iminka dhibaatada ugu weynayna haysataa raagidii ay raagtay doorashooyinku ee 15 sano dad fadhiyeen xildhibaanadu waxay iloobeen wixii ay meesha u tegeen iyo dadkii ahayd inay matalaan labadaba marka waxaan doonayaa anigu inaan noqon dadka noocaas oo kale ee ilooba anigu waxaan doonayaa inaan matalaa daba aan matalo dadkii i doortay waxaa oo soo jirta sharci dejintu dhibaatada ay leedahay waynu wada aragnaa xeerar fara badan oo horumarka dalka uu ku xidhan yahay ayaa maanta u xidhan oo xilxibeen ama u dabran waxaynan imika fahmi karin ama aynan sharxi karin waxyaabaha ugu daran ee maanta ka jira xeerarka waxaa ka mid ah xeerkii kufsiga oo ay xagdarro iyo xadgudub ku ah haweenka reer somaliland oo maanta hadday dumar fadhiyaan baarlamanka ay wax weyn ka qaban kari lahaayeen ama wax ka odhan lahaayeen constitutionka laftigiisa ee inaga laynagu dhaqo dumarka waxba kuma laha contribution kuma laha waxalaali waxaa la qoray oo dhan nin baa qortay waxaad ka aragtaa xeerka nationalityga markaad eegto waxaad aragtaa inuu dumarkii reer somaliland ka eexday meel kasta ood eegto waa laga eexday meelaha uu exanayana si kalaa loo sharaxaayo sidii la rabi looma sharaxo marka inaan maanta halkan isu soo taago oo aan idhaahdo musharax baarlamaan baan ahay waa waxaan u arko inay tahay wax aada iyo aada muhiim u ah dalka u ah haweenka u ah aniga ii ah inantayda u ah waxaa kaloo jirta in ay dhici karto siyaabaha wax lagu soo xushaa ay tahay siyaabo aada iyo aada u qaldan oo khatar gelin kara somaliland iyo jiritaankeeda waxaa dhacda in guruub yar oo aada u yar intay isu yimaadaan ka taliyaan mustaqbalkii somaliland haddii xitaa waxa reeruhu ay dooranayaan ay ahaan lahayd
mid xaqa oo doorasho ay ku imanayaan dadku waxba may ahaateen tiny minority oo weliba u badan dad baahan oo dhibaato haysato oo dad madax kaga istaageen oo laga faa'iidaystay nuglaantooda ayaa inta meel isugu keeno la yidhaahdo waa inay doortaan cid doortaan dhibaatada leedahay waxaa dhici kartaa in aynu gaadhno halkii xamar maanta gaadhay oo ah qofkii soo baxaya inuu iibsado kursiga in la iibsado ayaa la gaari karaa waayo boqol qofoo meel isugu yimid nin lacag haystaa wuxuu doonu ka samayn karaa waxaa dhici karta inay somaliland baarlamaankeedu ay fadhiistaan dad aan somaliland danteeda ka talin oo cadowgu soo adeegsado kol haddii wuxuuba wax la iibsanayo yahay kuraastu waxaa dhici karta in inta kursiga la iibsado deedna aynu ka buuxino baarlamaanka dad uga janjeelo somaliland inay soomaaliya ku darsato oo deedna ay yidhaahdaan maanta waxaan anigu aaminsanay soomaali weyn oo wax dhici kara khatartaasaynu ku jirnaa waxa kaloo ayaan daraa in sidaas selectionka ama xulidaas ka jirta reeraha ay soo baxaan dadkii aan ku habbooneyn meesha inay yimaadaan marka horta xulidaasi in wax weyn laga qabto oo bedel weyn lagu sameeyo aada iyo aad bay muhiim u tahay waxa keliya oo wax bedeli kara maanta aan anigu arkaya oo basbedelkaasi ka iman karaa waxa weeye dhalinyarada realitygu waxa weeye dhalinyarada iyo dumarka wax ku codaynaya ayay ka iman kartaa uun inay isbedel yimaado haddii aanay iyagu isbedelkaa keeninna isbedelkaasi mid soo soconaya maaha ayaan darada kala jirta waxa weeye dumarkii cid allaale iyo cid ay u tirsan yihiin maanta lama garanayo marka reerkaaga u tagto anigu sida la og yahay reeriguma xidhnoo meel aan u dhaxay ma jirto dalkaygii baan joogaa markii la waayey cid aan u dhaxo waxaa la yidhi deegaankaba maaha hargeysay ka timid marka lagu reegayo wax lagugu reebo lama waayo marka xulitaanka haddii aan la sixin dowladnima nasixmi mayso baarlamaan nasixmi maayo waxaan maanta markaa doonayaa inaan horta bogaadin u diro iyo maaragtay encouragement u diro meesha aan maanta doonayna iska sharxo waxaa gobolka saaxil anigu gobolka saaxil siduu dhan yahay baan u taaganahay reer gaaro uma taagni gobol magaalo gaaro uma taagni saaxilka ay dhan tahay danta saaxil iyo matalaada saaxil baan maanta u taaganahay codka waxaan ka doonayaa cid walbaan ka doonayaa waxaan maanta rabaa inaan ku celiyo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ba inaan ku celiyo musharaxad baanahay sababtan taa u leeyahay waxa weeye maalin walba dadka doonaya in ay iga tuuraan meesha dibadagaadka way ku bilaabmee waxay yidhaahdaan way tanaasusho odayaashada isu tanaashustay waxaas marka anigu waxaan ku wiri reerkaygii markaan u tegay wax tanaasul la yidhaha ma jire ama ii fooda ama iga fooda markay ka baqeen inaan laga wada foodi doono waxaa la go-aansaday inaan shirkiiba layga qaybgelin marka waxaan u taaganahay maanta sidaa la sheegay qaranka somaliland waxaan u taaganahay gobolka saaxil marka saaxil lasoo dhaafanaya waxay noqonaysaa chamberkani waa chamber national chamber weeyaan danta somaliland halka ay taallo unba ayaan aalaa waxaan in yar baan doonaya tix yaroo xasan dhuxul aabsaalax uu sheegay oo la yidhaahdo dahab baad u dhalatee sidii maar ha doorsamin karaamaad ku dugsantee sidii dunyo hawlumin adiga oo dad hagi kara adigu ha isla daadegin marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu